الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داودياشا قدرينتي قيمها مدني برتان نغا داونسana banagala socotaani waa galbeed TV xaruntiisa magaalada Edmonton ee dalka Canada waxaan iniga raali gelinayna runtii inagoo maanta ku balansaneen sidaan barta Facebook iyo maqaalada kale qoraalada kale ku soo bandhignay inuu maanta programka arrimaha bulshada u ahaan doono mid aan dadka u furayno live xagga Facebook iyo telefoonka wanagala soconayaan arintaas oo ahayd ka hadli doona arrimaha xusbiga mucaaridka ee Djibouti MRD iyo gudoomiyaha xusbiga daaf loo yaqaano amba mudane Ahmed Faarax Daahir ee marka la soo gaabiyo daaf loo yaqaano wayniga raali gelinayna runtii way noo suurtagal weyday cilad farsamaatimeed maadaama dib u dhacnay waxaan ku balan qaadanaa mar labaad anagoo iniga raali celinayna bulshada nala socota galbeed TV inaan wiiga dambe ka dhigi doono gaar ahaan reer Djibouti si ay ogaadaan dad badan insha Allah u baaqi doona Senegal soo qayb galaan programkaas runtii programkaas wuxuu ahaa mid aan kaga hadlaynay xusbiga mucaaridka ee MRD iyo gudoomiyihiisa daaf amba Ahmed Faarax Daahir isagoo wiigii hore soo safray bisha 6deedii Khamiistiina soo dhaaftay yimid cariga Ingiriiska magaalada London xagaasu yimid telefishinka caanka ee Colson TV isagoo xaga kaga waramay arrimaha siyaasadda xaaladda siyaasadda Djibouti iyo xaga kale oo su'aalo loo weydiiyay oo ahayd ku saabsanaa aqoonyahanka daada yar ee Liibaan Mustafa haddaba saan ogsoonahay mudane Ahmed Faarax waxa uu u soo safray uu telefishinka u yimid cariga Ingiriiska sidoo iska difaaco uu dadkana u sheego been uu ka dhaadhiciyo arrimaha ku saabsan Liibaan iyo dacwadda soo ku socota ee dib loogu yeeray Yurub daraadeed sababtoo Yurub ku soo laabtay waxay ahayd dacwaddaas ku furmatay arrinkaas dilka foosh xun leh oo ku lug lahaa arrimaha Liibaan bal haddaba inagoo programkii aan maanta u guda galayn waxaan rabaa inaan hordhac yar in siisina caawa waxaan wiiga dambe iskugu iman doono waxaan wiiga dambe iskugu iman doonaa gudoomiyaha xusbiga mucaaridka ee loo yaqaan daaf Ahmed Faarax Daahir iyo xusbigiisa uu gudoomiyaha ka yahay MRD bal haddaba in yar inagoo caawa ka hordhacana waxaan rabaa inaan laba su'aalood ka soo qaadano oraahdii iyo muuqaalkiisii uu xagga bartu soo fadhiyay uu ka muujiyay uu ka yiri bal ila daawada bartamiisi arrin baa ka dhacday dabcan adiguna waad ka warqabtaa Brussels wadanka Belgium wiil dhalinyaro ka tirsanaa sida la sheegay marka hore xisbigaaga oo lagu magacaabo Liibaan dabcan waad garan kartaa in badan oo Djibouti way yaqaanaan ayaa indhihiisii ama laxaadkiisii ku iimsanaa indhihii niman dhalinyaro oo sida la sheegay xisbiga ka tirsanaa ay ka tuureen arrintaas in badan baa lagu soo eedeeyay adoo daawadayaasha la qaybsanaya maanta fursadan maxaad ka jawaabaysaa waa run dhacdo foolxun ayaa ka dhacday Brussels sanadkii inaga tagay bishii 16 ahayd baan u malaynayaa inaka yar reer Djibouti Liibaan Mustafa Xasan oo xusbigan kamid ahayn sidaad sheegtay laakiin mucaaradka kamid ahaa ayaa in aragtidiisii indhihiisii ku waayay dhacdada foolxun waan ka xunahay markay dhacdana waan sheegnay inaan ka xunahay waanan maxay haydanay isgarabta noo taageernay imankana waan ku celinayaa ilaahay ha garab galo oo aragtidiisii dhakhtaradaha ugu soo dhiibay ayaan leenahay been badan iyo propaganda badan ayaa arrinta laga sameeyay oo taliska qudadiisu una ka maqnayn oo maalin dhaweyd xitaa waxa adeecada rasmiga ee taliska ayaa timid Brussels oo yarka wareysatay ra'iisul wasaaraha oo assembleega ayuu kaga hadlay arrinta oo taliska qudadiisu oo arrinta waa la isku dayay in la siyaasadeeyo iyo la isku dayay oo dhabarka la noo saaro MRD dhabarka loo saaro aniga dhabarka la ii saaro yarka waa uu hadlay oo eed buu ku celceliyaa daawadayaal runtii waad arkayseen sidoo gudoomiyuhu hadlay ugu jawaabay su'aasha la weydiiyay wixii kale wiiga dambe ayaan hadaladiisa oo qodobaynano runtii qodoqada u soo qaadanano aan kaga hadli doonaa iyo dadkii bulshada reer Djibouti iyo bulshada Soomaaliyeedba ee arrinkan og gudoomiyaha su'aashaas la weydiiyay waad ila maqlaseen waxa uu ku jawaabay waad arkayseen wuxuu yiri eed badan baa lagu soo eedeeyay taliska xitaa dawladda taliska ee Djibouti oo Ismaaciil hogaaminaya ayaa ka hadashay waa toddobaadka dambe iyo galbeed TV